gelinkii dambe maanta ayaa dabkani si degdeg ah uga qarxay qaar ka mid ah beeraha ku yaala suuqa Geedmara ay gudaha magaalada Ceergaabo waxaana xilligan ay dhacaysay dabaylo xooggan oo dabkaasi isaga kala dab qaaday in badan oo ka mid ah beerahaasi halkaas oo ay ku shufteeleen dhirtii iyo khudaartii ugu beernayd bulshada beerahaasi manaafacadsanaysay ma jiro inta la og yahay khasaare in ka badan gubashada in ka badan 10 beerood lamana oga ilaa iyo hadda sababta dabkaasi ka dhashay dadweynaha ku dhaqan magaalada Ceergaabo ayaa si weyn ugu gurmaday daminta dabkan iyagoo adeegsanaya ciid iyo waliba biyo waxaana dadweynahaasi ay ku guuleysteen in dabkani ay hakiyaan annagu ma aynu xukuumadda wax gurmada kama hayno waana sheegataa dabdamis iyo dawlad waxbay sheegataa ma aynu jamaa dadkaanu ku baqtinay 10 beerood mar dabkusta kalbiski ma iman xukuumadii ma iman rasaab ma iman maayir ma aynu cidnaba ma arag aqallada dirqi waxaanu ku kala jaray waxaanu ku tuntuusanay inaanu guriyaha ka jarro iyo dabka kala goyno intaasay awoodayadii iyo dadka gamcihiisa xukuumadda ayaan haba yaraatee wax gurmad degdeg ah u fidin dabkan qarxay waxaana xusid mudan in magaalada Ceergaabo gebi ahaanba ay ka aradan tahay gaadiidka loo yaqaan dabdamiska